Mujaahid Maxamuud Dacar Dhagaweyne iyo Cabdiqani Nuur Xirsi oo ka mid ah ururka nabadda iyo horumarinta gobolada Bari ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanka Gar Adag waxaana labada dhinac ka codsadeen in aanay hurin colaadda iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay in la soo qabto gacan ku dhiiglayaasha labada dhinac. fidnadu way gaaban tahay daba yar bay leedahay oo la qabto dibkiina waa labada qof walakum fil qisaasi xayaatu yaa ulul albaab kuwa caqliga leh oo bulay alle nolol baa idin ku sugan inaad iska qabataan qofka qadliga geystay ee camdiga ah ee sida tooska ah u geystay oo aad iska dishaan haddii kale waxaasi way idin fidnaynayaan waxaanu idin leenahay waaridayada qaata haddaanu nahay dalada midnimada gobolada bari ka shaqeysa xaqiiqatan waxaanu qurba joog iyo guda joogba arintaasu shacabka aad bay u dareentay reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolada bariga kumaanaan diirsan haddaanu nahay ururka nabad iyo midnimo kumaanaan diirsan arintaa ka dhacday Gar Adag iyo soonaheeda waxaanaanu leenahay labada reer waxa haydeen dadkii inuu dagaalku fido diiday ka hortagay caqliga isticmaalay caqliga ummadana waa haydeen karaamiyo sharafna waa hooneydeen imakana shakhsiyaad qaldamay waxba idin ka dhimi maayaan arintaasu sidii markii horeba baalka dahabka uga ciyaarteen mar labaadna uga ciyaara xaqiiqatan beento la macaansado runta oo qaraarkeeda la adkaystaa ka waran xaqiiqatan cid isku keen imanaysa iyo gurmad kale iyo cid wax idin qabanaysa toona ma jirto walaalayaal idin sidii reer Ceelifeen u dhameysteen ina hadda reer Gar Adag tihiin idina u dhameysataan ayaanu idinku ducaynaynaa waana ku mahadsan tihiin waxaana tihiin dadka run ahaantii wada dhashay oo isdalay isma hori karaan oo hilbo wada dhashiyahay quraaba tihiin reer Ceelifeen waa halkii midnimadu ka bilaabantay reer Soomaaliland hooyadii midnimada ahaydeen reer Ceelifeen reer Gar Adagow taariikhdiini markasta dib u dhigta karaamadiina iyo sharaftiina in sidii reer Ceelifeen u soo celisaan baa muhiim ah baaqaanu idin direynaa haddaanu nahay ururka nabad iyo midnimo guda ilaa dabadna arintaa waanu ka xumaanay mar dambana ayaanay sii soconin shakhsiyaadka qaldamayna dhinac uga soo wada jeesta baaqaasaanu idin soo direynaa waanaanu idin soo ducaynaynaa shakhsigana waa in la iska qabtaa